saaxib waan ku salaamay mar dhow ayaan imaan rabaa qadar laakiin waxaan ka cabsanayaa inay igu dhacdo shaqo la'aan marka ma iga hubtaa meesha shaqo ma leedahay aniga waxaan ahay darawal cagaf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونيجو ولكن بشك بشير أيد الله لجوسو دوادو يوتيوب channel كيجا كل سادة قبرتين مرة بحاجة على إن أيدي صوب نيجو وحياة وبالشدة فايدو له دي أتاه مركي كوجوري سنصوب وتفضل هيلو إن سكراب بعبعك في الفيديو لا يجري هذا وما سنتي سو كلمات وحكال لنا برنامج كي كوساب سنة دلك قدر قاب كلو إمادو شقوين كقاب كلو هلا سو كلا فيزوين كا وحياة قاعدنا يسو يا إن شاء الله كوب كاغشاها سو قادو هدي aad qabtay su'aal ku saabsan dalka qadar commentiyo ku soo qor su'aasha ugu horeyso mahadsanid in badan walaal qaaliya waxaan rabaa inaan imaado qadar shahaado social works haysta ka waran fursad waa sidee labo shaqo iyo waxbarasho ma la isku wadi karaa qadar mahadsanid in badan horta ninkan wuxuu yiri shahaado haysta inuu shaqo imaado ayuu rabaa laakiin wuxuu rabaa shaqo iyo waxbarasho mostly qadar way adag tahay qurbaha da soo gasho qurbaha dhawa hadii aad waa shaqeynaa dhahdo waxna waa baranaa yani way yara adag tahay koos dad qof wadanka u dhashay ma tihid marka dhaqaalaha ayaa ku diidaa laakiin hadii aad tahay qof oo la taakuleynaayo am yani la support gareynayo family oo yani wuu baran karaa waxbarashadana waa ogtahay waqti gooni ayda kaligeeda waxa laga yaabaa inay qaadato subax hadii aad gashid ilaa ay casarkaad ka soo baxaysaa marka shaqadii goormay shaqeynaysaa yoom la sikeeray laakiin waxbarashooyin yar waxaa jiro distance oo weekii mar la dhigto markaas waa dhigan kartaa taas xitaa waxyaabo oo caqabado yani mararka qaar ka hor istaagaya jir waayo shaqadaadi iyo inay isku aadaa laga yaabaa xilliga oo waxbarashadaas la qaadanayo marar badan anigii siday ugu dhacday so yani waa samayn kartaa laakiin saa ii sheegay waa qofku waa in la support gareeya taasa ku jirto wax walba la sameyn karaa laakiin yani markuu horeys waa ina ogaato ina caqabado ay soo wajahayso laakiin hadii aad tahay qof ay ka go'an tahay waa isla sameyn kartaa shaqo balaas iyo waxbarasho su'aasha labaad assalaamu calaykum walaal qof xirfad leh haduu wadanka qadar uu imaado ka waran marka horena fiiso shaqo uu ku imaado wadanka horta mid dadka ma fahansana fiiso kasta oo qadar lagu imaanayo waa fiiso shaqo kaliya يعني حلو جيدا فيزا شقة أبادن دتك مركو قف كرابين وشقيستو لكن دلحيس ويجينا أي جوني واي لكن أنا ما دام أسومالنا هاي وحارنا ميلا وهرمرك سمين كرنا كشقيسان كرنا سومالين كوحيري فيزا شقة كوي ماذا حرفنا وليه هاي قف كاس يعني حرفدي شقة واسكو ذميت وحي بهالميل بوسعدان فيزا شقة كوي ما نيسا حرفد هذا هورك وذنيسا وفهمتي سما ورير ما كينيسو marka muhiimadu waa fiisaha shaqada waad ku imaaday wixii aad ku imaaday maan wax kala hadaad qaban kartaa wareen ma laha taas su'aasha saddexaad qadar shaqaalo guri nadiifin sida Sacuudiga ma leedahay inteena ugu badan intay qaataan shaqaalaha nadaafada horta shaqaalo nadaafad aniga ma arkin wadankeena Soomaaliya ma arkin badanaa meeshan like Sacuudiga oo kale kama shaqeeyaan waxa ka shaqeysta ajnabi Philippine Hindi iyo Nepal hada Asian kan say isku wada jiraan ayaa ka shaqeeya lacagta ay qaataan waa $500 hadii san ka badeen waa laakiin $500 yani waaye waxooda wali kuwa kambaniyada ku xiranta kuwa qaar wali waxa la siiyay guriyo meelay deegaan la siinaa shaqadooda waa la geynaa waa laga soo celinaa laakiin badana kambaniyadaas dadka ayaga si toos ah direct waxay ugu soo qaataan wadankii wali waxa u badan Kenya Uganda Afrikaanta kala u badan laakiin Soomaali kuma arkin anaga Soomaali waa ognahay lacag badan arabna so waa taas su'aasha kale saaxib waan ku salaamay mar dhow ayaan imaan rabaa qadar laakiin waxaan ka cabsanayaa inay igu dhacdo shaqo la'aan marka ma iga hubtaa meesha shaqo ma leedahay aniga waxaan ahay darawal cagaf horto mid badana dad ayaa waxay dhahay xitaa inuu meeshan shaqo ma lahan maxaa dadku u soo lugoynay meel walba hadda ma waa aragteen sama shaqo la'aanta meel walba waa ka jirtaa laakiin qof nasiibkiisa iyo sidoo u dhaqaaqay ay ku jirtaa ninkan darawal hadii aad tahay cagaftaan meeshan
mashruucyo badan oo bildino waaweynaa la dhisaa cagafta wax walba waa la shaqeysaa laakiin aniga soomaalideena xoogahoo yacni jileec yaraa nagu jira wax walba waxaa ku rabnaa qofka naga horeeya fiirsanayna anagoon isdhehaynin wax naga dambeeya anagoo qof walba haddii la dhihi lahaa qof walba asaa iswada way fiicnaan lahay sooma laakiin anaga qof kale oo nolol kale hooyar sare ku jira arkayna anaga noloshaas ka rabnaa laga yaaba adiga noloshaas inaadan u diyaarsaneen so haddii aad maanta kusoo talgeshid inaad wixii kaa hor imaada aad qabanaysid waad qaban kartaa meeshaan shaqana dee waa imaaday shaqada ma jirto malaayiina shaqo soo raadsanaysa meeshaan really wallaahi maalmo ka hor waxaan ka imaaday jima ka imaaday meel waxaa arkaya bakistan oo yacni shaqaa laga sheegay wallaahi bakistan keliya waxaa joogtay qiyaas ahaan dad ku dhow 200 waaba qamiisyadooda cidaasna waa la yaqaanaa bakistan sama qamiiskooda ay wataane marka shaqada waa saas meeshii la sheegay warqadaada cv-gaaga diyaarsani adna lugtaa furi waa tagaysaa waa intaasaa lagu qaata labadaas boqol had meesha ay tageen lama wada qaadanayo dadaa laga wada qaadana marka laakiin qof walba nasiibkiisa ayuu ku kalsoon yahay ilaahay wuxuu usoo qoray inuusan weyneynin marka shaqada sidii lagu raadsana laakiin haddii aad imaadid meesha wax fudud ma jirto haddaan kuu sheegaa wax fudud ma jirto aniga hadda kula hadlaayo aan mar walba idinkaga sheekeynaya dalka qatar markaa imaaday waxaan hore ka hela ma jirto muddo ayay ugu qaadatay inaan shaqo helo weliba xilligaas aniga connection fiican ama qof wax ii sharaxa ma haysan laakiin idinka hadda already information waxyaababa helaysaa macluumaad anoo indhaha xiran macluumaad fiicanna aan haynaya imaad wadanka intaa kala qabsanayay aninba koros kusoo qaaday oo waqti ay ugu qaadatay alxamdulillah waa wadan fiican laakiin fursadahan waa wadan horumar weyn sameynayo weliba barnaamijyo badan hadda internetka idinka waad daawan kartaan newska waad ka arki kartaan marka muhiimadda waxay tahay sorry waan ku dheeraaday muhiimadda waxay tahay shaqo way taalaa laakiin dhaqaaq sameey wax walba iska kala hadi hadda digaaga waa aragtay subaxi digaaga kan ma aha digaagadan casriga ma aha oo hadda yani wax walba cuntadooda isku kor saaran tahay digaaga hore shimbiraha oo kale subax markay soo toosaan raashin u diyaarsan ma jirto laakiin way kacaan ilaahun baa irsaaqdooda siiya so adigana haddii aad salaada subax tukatid amaba waad tahay qof shaqo la-aan oo fursadba haysta aan shaqaynayn shaqay wax kusoo dhafraa habeenka ha dhafrin intaa mobilka daawatay filim ku dhafartay waqti dambaa seexatay subaxi ma kici karaysid marka meeshaasna dhowr bilooda kaaga dhumaayo so adiga shaqaa ku imaaday sharcigaaga markaa iqaamadaada waxaaga heshidba hore ka dhaqaaq subax walba kalah adi dhib ma laha waxaa jira basas oo lacag yar lagu raacay tareena iska jira oo raqiisa marka dhaqaaq adiga lugta fur akhiiran waxan baa soo helaysaa haddaad ducaysato oo baxdo subax walba baxdo marka dambe ilaahay fariju kuu furaa marka saas sameeya insha allah dadka shaqo la-aanta le ayadana waa taladaas يعني ساس سمية وحي واحد ديار سمي جرت لكن مروة بعدين دقائق سمية سؤال أنا كسوق جبينا صاحب أسكرت قدر قادنا يسقور من بلعب ميسانة هرتا أسكرت طبعا ويجرتا دور حلي هرو حاجة جرتا حتى دور صار لقي جو صدق كنا خوفو صوماليا لقى سوق هذا دايركت مرة سوداني كسوق هذا مرة باكستان marka hadda xiliyadan ma jirto oo dad toos oo wadanka loogu soo qaadanayo laakiin waxaa jirta qofkii xagan jooga mararka qaar hay waxaa furan askarta oo special force waxaa furan booliska waxaa furan militariga meeshii aad tagaysaa waa tagaysaa saa hore idinkugu sheegay muuqaaladeeda hore ku sheegay waa tagaysaa waa soo buuxinaysaa warqadahaaga dokumentiga geynaysaa dugsi sare waxaa haysatid markaad tagtid haddii aadan haysan xitaa waa ablay garaynaysaa muhiim waa kaama xirna xitaa laakiin dugsi sare qofkii haysta ugu hore ugu weyn qofka haysta xitaa qubaan waxba haysan dugsi sare waxba haysan xitaa waa buuxiyeen so muhiimaddu waxay tahay waa tagaysaa askarta hadda wadankay ka furanta laakiin askar oo hadda oo ka furan oo xaggan oo ma jirto oo yacni la qaadanayo laakiin mar maalmusaa u joogta beri askartaa la furaa waa wax dowladeed soo ma waa la furay qofkii waa la maqlaa waa lagu kala boodaa marka saas waa insha allah marka insha allah haddii aad qabtid su-aal ku saabsan dalka qatar ha iloobin inaad soo qortid insha allah muuqaalka xiga ayaan soo qaadan doona han iloobin muuqaaladeena inaad sii sheer garaysaan like-taada commentiga waa dhiirigelinta kanaalkeena waxaa idin leeyahay inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu peace and love nabadaa ka shaqeynay anoo daalana muuqaal idin soo duubaya